اسبوعان I think so waxaan rajeynayaa inuu idin ahaa bishan baan dhehe tradekiina aad horta u fiicnaa inta badan dadka qaarna waxaa waaye inkastoo uu ka xoog badiyay emotionka dadka qaarna waxaa waaye si fiican bay horta u trade gareynayeen and that is good muhiimadana waxaa waaye qofka conceptiga mar hadduu gacanta ku dhigo inuu conceptigaas qofka uu isticmaalo markii lagu jiro xarada waxbarashada ama calaashaan markii wax la baranayo oo skill la kordhinayo waxay u baahan tahay waqti badan qofka inuu geliyo I think so maanta waxaan rajeynayaa inaad dhowr model aad taqaanaan oo qof walba modelo kala duwan oo uu suuqa ku galo maanta uu haysto taasaana waxay kaa caawinaysaa system inaad adi gacantaada ku samaysato I think so dadka waxay u maleeyaan marka technicalka uu dhismo oo gacanta ay kuu fariisato oo meel walba waxaa waaye aad wax ka fahanto markaasaa shaqo kuu bilaaban doonto and that is the way ani aan u rabaa hadda inaa horta gacantiina ay soo wada fariisato oo interiyadana si fiican aa u wada qaadataan markaas kadib waxaa soo fuuli doontaan doontii experiencega loo baahnaa oo waxaad dareemi doontaa muhiimadda ay leedahay experiencega sababtoo qofka waxaa arkaysaa example qof dhaqtara jaamacad galayo muddo gelinaya waqtiyu soo baranaya dhowr dhaqaatiir waaye somehow qofka qaarna wuxuu sameynayaa markuu jaamacadda dhiganayo wuxuu sii raadsanayaa meelo internship ama practice uu kusii qaato uu calaashaan hobby uu ka dhigto kusii dhex shaqaysto qofka marka alternative way leh oo kusoo shaqaysanaya maalinkii caawiye ah galabkii caawiye subaxina jaamacadiisa dhigto oo 5 sano ama 6 sano jaamacadda socoto saas kusoo dhameysto markuu ugu dambeyso qofka jaamacadda leh intuu ka baxo buuga guriga dhiga hadana examka soo diyaariyo kusoo laabto iyo shakhsigaas oo daily routine sameynaya oo practice ka soo sameynaya isku khibrad ma noqon karaan isku qaabna wax uma xallin karaan laakiin waxyaalaha ay ka siman yihiin waxa ah technicality-ga xirfadda aqoonsiga shahaadada waqtiga iyo jaamacadda way ka wada siman yihiin laakiin waxay ku kala duwan yihiin experience-gana in lagu kala duwanaado waxaa keenaya hadba qofka sida uu daily ula dhiil gareynayo waxyaalaha uu sameynayo wuxuu ka dhaxlayaa in maxaa la yiraahdaa oo experience badan ka barto waa kee marka qofka experience-ga baranayo waa qofka wax walba uu sameynayo nood gareynayo u qodobeysan yoolalkiisa macquulka ah u sameysan sidoo kale ku dhegan system gaar isaga uu leeyahay qorshe u degan isticmaalo qorshihiisa sidoo kalena ku farxa waxyaalaha oo isaga u soo kordhay isbuucaas hadduu arko nood gareeyo laakiin kan kale hadduu wixii analyze gareeyo uusan nood gareynin TB uu helo iska baxo SL uu helo iska baxo uusan wax qorin xilliga SL-ka ku dhacay uusan ogeyn xilliga TB qaato uusan ogeyn sababta loogu qaado TB uusan ogeyn kaliya waxaas yarka uu arkayo ilaa indhihiisa uu ku qanco iska dhaqaaqo hadhow taasi waxay ku keenaysaa calaashaan inuu noqdo dhakhtarkii maxaa la yiraahdaa 6 sano jaamacadda dhiganay laakiin experience la'aanta noqday laakiin qofka kale oo daily routine sameynayo wixiisa nood gareynay uu ka fiicnaanayo shakhsi kale hadda waxaan aaminsanahay 90% ardayda hadda qaybteena advance uu ku wada jirto in suuqa si sax ah u fahansantihiin technicalkana maanta dad badan oo suuqan ku wareersan ka fiicantiin 100% oo aad isku aadin kartaan aad fahmi kartaan xilliga intriga uu baxayo aad fahmi kartaan kala wareega jaartiga indhaha markaa usoo kala furtan automatically aad dhihi karto meeshaas intriga ka baxay meeshaas intriga ka baxay xilligaas uu baxay iyo waxyaalo la mid ah taasa waxay keenaysaa juhdiga iyo waqtiga iyo dadaalkii naftaada soo gelisay oo ku soo jihaaday oo levelkan ku soo gaarsiiyay marka hadda level waxaa maraysaa oo mindset ahaan iyo fundamental ahaan asku dhisto taasa hadhow waxay ka dhigi doontaa qof dhinac walba ka dhisan ina technical kaliya ku ekaato oo laakiin aadan ku darsan waxa la fundamental news-yada akhriskooda way kugu filnaan kartaa laakiin waxaa tahay kaliya qof wax ka dhiman yihiin percentage ka dhiman yihiin xilliyada dhaqaaqyada ay dhacayaan maalmaha sababta ay u dhacayaan totally ina ogaato kale wax muhiim ah oo meesha ku jiro waay hadda hortiina waxaa ka muuqday intrigan waxaa waa GBB JBY 15 minute waay I think so qof walba uu arkaya dhowr casharo idinka aad soo qaadateen intriyadan way ku baxaan waa soo wada qaadateen any design any level any maxaa lahaa type oo ahaadaba hadda waa wada fahansantiin haddii aad soo qaadateen quarterly theory based adoona time frame kala aadina waxaa ogtahay accumulation manipulation kadibna distribution inaan soo raacay sidoo kale haddii aad soo qaadato maxaa la casharada W
oo lagu soo laabanayo neckline-ka automatically waxaa kuu muuqanaysa w neckline lagu soo laabtay. sidoo kale haddii aad fiiriso ver value gap iyo casharadiisa aad soo qaadato waxaa kuu muuqanaysa close above and then in lasoo laabto ver value gapkaas laga kacay after breakaway ver value gapkaas intrigaas qaabkaas uu igu baxay. meesha aan ugaarsadan automatically waxaa waaye buy side-ka korkiina ka muuqdo wax badan ma xarxariiqin. marka that means waxay ku tusinaysaa inaan wax badan xarxariiqin structure-ka suuqa siduu isku dhisay. waxa adi aad raadinaysid iyo waxa adi kaa fakanayana inaa intooda kala wada fahansan tahay. haddii hadda lagu weydiiyo dadka qaar haddii la weydiiyo waxaan waxay iskaga malaynayaan wax iska xarxariiqan oo laakiin micno aanu ku fadhin. laakiin tiimka garsoor maanta haddii la weydiiyo waxaan inta yaala maxaa waaye caddeynay u haystaan oo waxay dhihi karaan waxaas waa hebel iyo hebel iyo hebel waxaana lagu qaatay shuruud hebel iyo shuruud hebel. intrigaasna wuxuu ahaa ee balanceed. taasaa waxay ku imaanaysaa marka ay ku imaan kartaa waqtiga iyo dadaalka iyo juhdiga adi lagugu soo bixiyey. markii la imaado marka inaad real u trade garayso waxaa u baahan tahay inaad qodobaysato emotionkaaga hadda aad qorato sl maalinkaa heshid inaad qorato sababta u heshay aad nood garayso. sidoo kale inaad samaysato qorshe ganacsi adig gaar kuu ah. samee qorshe cad oo faahfaahsan oo ka kooban meelaha aad ka gelayso suuqa, meelaha aad kaga bixayso, halka aad dhigayso stop loss-kaaga, bartilmaameedkaaga faa'iidada. marka aad qorshe leedahay oo aad si joogto ah aad u dhaqanto waxaad ka fogaanaysaa ama ka dheeraanaysaa go'aamada degdega ah marka faa'iido ay bilaabato. calaashaan waxaa ogtahay meesha faa'iidadaada ugu macquulsan adig targetkaaga uu yahay. haddaa 1 to 2 1 to 3 1 to 4 aad raadinaysid waxay ku xiran tahay hadba time frame-ka adiga markaas aad ku trade garaynaysay inaad qodob ahaan horta ku base garaysid. waa qodob meesha kugu jiro. sidoo kale inaad lahaatid yoolal cadcad oo macquul ah oo calaashaan adig kuu qoran inaad samaysatid. calaashaan ha isku dayin mar walba inaad dhammaan aad raacdo dhaqaaq walba oo suuqa uu qabtay inaad qabataa isku dayin. kaliya waxaad diiradda saari kartaa dhaqaaqa London ama dhaqaaqa New York nooca markaas adiga uu hadafkaaga yahay. sidoo kalena waxaa waaye inaad faham guud ka haysato hadba suurtagalka interiyada xilliga ay ku habboon yihiin markaas maalmaha adiga aad ku jirto. qorshahaaga inaad ku darsato, yoolalkaaga aad ku darsato. aad dhahdo aniga waxaan trade garaynaya talaado arbaca khamiis ama waxaan trade garaynaya arbaca iyo talaado ama khamiisaan trade garaynaya. sidoo kale qorshahaaga inuu kugu jiro wax la dhaho break even plan ama calaashaan isticmaal inaad khasaarahaaga adiga aad kontroolan karto oo calaashaan intriga suuqa meesha u dirto. tusaale kan oo kale hadda haddii bartaan aan ka galo almost inaan khasaarahayga control aan keenay intrigayga waxaa la break even. kadib bartaan markaan keeno almost waxaan haysta waa faa'iido. waxaa kaloo la bartaa qaabka partial loo qaato oo 50% ee loola baxo. partialka ujeedada loo qaadanayo maxay tahay suuqa inuu kuu dhaqaaqo boqolkiiba 50 waxa adiga aad ka rajaynaysay. in case hadhow hadduu kugu soo laabto marka uu intriga ku soo laabto waxaa la rabaa inaad qorshe cad oo nadiif ah aad meeshaas la imaaday oo hawshaada ay saas kuugu dhamaatay. sidoo kale waxaa qasab ah inaad ku faraxdo faa'iido yar kasta oo aad samaysay. ilaahow ha noqoto $1, ha noqoto $2, ha noqoto $100, ha noqoto $1000. ha noqon mid damac leh mar walba gridhi ah wax badan raadiyo. taas waxay kugu ridaysaa inaad suuqa niyad jab badan maxaa la lahaa aad ka qaadid. sidoo kale lacagtaada aad khasaarisid. tusaale ahaan haddii hal trade maanta aad qaadato faa'iido fiican uu ku siiyo faa'iidadaada aad kala baxda aad ogtahay faa'iidada aad suganayso taasi waxay dhisaysaa mentalitigaaga iyo kalsoonidaada. lama fiiriyo marka percentage-ka adi markaas aad heshay iyo lacagta adi aad heshay ee waxaa la fiiriyaa intriga ruleska-kaaga aad ku qaadatay. qofna aadan u daba fariisanin, aadan weydiinin, adiga inaad shaashada soo kala furatay, analyze-kii aad samaysay, aad xariiqatay, aad qodobaysay oo meesha u dirtay aaday. waa kalsooni boqolkiiba 100 ku tusinaysa inaad wax samaysan karto. isku filnaansho meesha la rabay aad taagan tahay. tani marka maxay maskaxdaada ku tabaysaa calaashaan ku tababaraysaa inaad guusha calaashaan xiriir la samayso. qaadashada faa'iidooyinka xiriir aad la samayso. xakameynta naftaada xiriir aad la samayso. hadafyada ka dhameynta yoolalkaaga xiriir inaad la samayso. oo waxaa ogtahay haddii si serious shaashadaas aad maanta u dul fadhiisato inaad wax ka keeni kartid at least 2-3 trade aad ka heli kartid. sidoo kale waxaa loo baahan inaad ka fogaatid maxaa la lahaa lacag badan inaad ciirisid. calaashaan beerar badan inaad ciirisid waa laga fiican yahay. waxaa la rabaa naftaada inaad ka adag tahay aad controli karto emotionkaaga
oo naftaada aad ka ilaalin karto waxa loo yaqaano argosiga oo kale. haddii GBP USD oo kale SL ku siiso inaadan lacag kale gold aadan usoo cararin, aad dhahdid tana degdeg badan, tana lacag badan isiinayso. markii maanta aa ugu talagasho trade inaad qaadato, there is no way oo aa u helaysid lacag kuu balangaraysan ama qorshe kuugu jirto. maanta haddaan baxo waagu uu ii baryo yaa fatax yaa risaaq aan dhaho irida kasoo dhaqaajiyo, I don't know lacagta isoo gelayso. laakiin maanta sababta xirfadan u barato waxay tahay inaad ku darsato yaa fatax yaa risaaqda subaxii aa usoo dheelmanayso, inaad ku darsato qorshe ah maanta $10 ama $15 inaad ka keeni kartid suuqaas adoo khasaare dhiganayo $8, $9, $5, $6, oo aana sugaysid sharciyada noocaas iyo noocaas iyo noocaas markaan ka helo aan suuqa intaas ka raadina. halka qof intuu qorax ku wareego uu baxo uu dhagax soo jibiyo shamiindo uu soo qaso uu soo daalo jir ahaan uu u daalo maskaxiyan uu u daalo maxaa la baadigiisa uu soo bahdilmo isagoo gaajaysan oo ooman dib u soo laabto. adina waxaa haysataa xirfad oo inaad laptop qaadato meel mukefle oo maqaayada ah koobka bishiina ka dalbata aa fariisato waqti aa gelisa hal sac bar aa shaashadaas dul fadhido lacagtaas kaliya aa focus garayso zoonankaaga aa calaamaysato aad sugto ilaa structure-ka adi aa rabtid ee kasoo sameynayso ruleska-ga ee kasoo waafaqayso. markii sida adi aa u diyaarisay aa u naqshadaysatay ee iskugu kaa diyaariso inaad beerka ugu dhacdid aad lacagtii intiriga bartaas ka qaadatid khasaarihi aa ugu talagashana aad dhigatid and then aa ku qanacdid inaad shaashada laabtid SL-kaaga aa ku xiratid TB-gaaga aa ku xiratid kadibna aa soo laabatid danaha kale oo kaa dhaco hadday noqoto backtesting, hadday noqoto waxbarasho, hadday noqoto TikTok daawasho, hadday noqoto baleen kale oo nafsadaada aa ku horumarinayso oo personal development kuu gaaray aa iska wadato oo aa ugu talagashay ilaa New York laga gaarayo inaadan mobilkaasna fiirinin shaashadaasna aadan fiirinin. waa discipline-ka nafsada lagu koriyo. taasaa marka waxay kaa saaciday emotional ahaan inay kaa dhigto qof adag oo suuqaana joogi karo joogteyn karo oo consistency fiican ku leh ka shaqaysan karo. laakiin haddii kalsoonidaada aa isdhahdid maanta alla ilahay ani suuqa meeshaan u dir u aadaya oo lacagtaan rabo waa ka samayn karaa, meeshaan rabaan la aadi karaa, I can make more money, waa riski garaynaa, loodkayga ma kontroolayo, waxaa noqonaysa dee qofki cilmigiisa ku kibray. cilmina haddii lagu kibro khasaare mooye faa'iido ma soo kordhiyo. oo wuxuu u baahan yahay cilmiga naftirkiisa akhlaaq iyo deganaan iyo discipline in lagu dhaqmo uu u baahan yahay. cilmiga waxaa la rabaa inuu kaa dhigo mid degan, xasiloon, wax kala soocan karo, wax kala fahmi karo. laakiin cilmiga hadduu emotion kugu abuuro ka waran oo keliya ah quick reach aad ka fikirtid lama rabo. waxaa la rabaa keliya inaad ka fikirtid waxaan maanta adi aa samaynaysid 100 qof aan joogto suuqan aan aqoonin. xaqiiqatan waa isla joognaa magaalada maxaa la dhahaa adduunka waan isla wada saarannahay, waa isla wada aragnaa social media, waa wada daawanaa trader badanaa joogo, dad badanoo suuqa akhriyaa joogo, dad badanoo analyze sameeyaa joogo, dad badanoo signal ka ganacsadaa jiro. qaabka maanta adi shaqsiyan aa wax u analyze garaynaysid oo intriga aa u diraysid oo rooliskaaga uu u cad yahay 90%, 80% waa ka fiican tahay. taas maxaa la rabaa marka inay kaa dhigto ka duwanaansho dadka kale fikirkooda, inaad ku darsato khibradaasoo kuu muujinayso wax qoran war magaalo waxaa la warqadu ku yaala inaad waxaaga qorato. sababta hadalkan ujeedada aan ugu soo darayo ardayda ka mid ah keligiisa maan dhowr arday ay la soo xiriiday oo interiyadooda haddaa aragtid mucjise ah meelaha ani aan ka qaato meelo kasii fiican kasoo helay soo wada qaadanayo interigii u waafaqayo ruliskooda. laakiin emotionkii maskaxdiisa inta waxay ka dhaadhicinay qofka anytime aa interi gelaysid goormee waay. almost hadda xilligan interigan uu baxayo waxay ahayd I think so 12 sac jajabay ahayd saacada Soomaaliga ilaa 12 sac. interigan qofna kuuma sheegay telefoon inuu kuu soo diro kuma dhahayo waxaa bixi doona interi hebel. laakiin haddaa suuqa dib u gasho way dhaqaaqan uu u dhacay maanta Talaado waay haddaa dhahdo suuq dib aa usoo fiiriso dhinaca economic calendar-ka aa soo xaqiijiso Talaado maxaa warbixin oo soo baxayo jiro oo yar ah oo waaweyn ah oo high impact leh oo normal leh. haddaa soo ogaatid kadibna aad soo fiiriso maanta maalinka ay tahay daily aad tagto reasonka waxaa ogaan doontaa uu suuqaas usoo baxayo iyo meesha uu kasoo kacayo iyo sababta uu usoo kacayo.
oo waa caddayn kartaa, waxaad dhihi kartaa sababta maanta loo soo kacay maalinka isniinta suuqa wuxuu soo sameeyey sweep liquidity-yadii ugu dambeeyey oo isbuucyadii lasoo dhaafay. saas darteeda waxaa kor kasoo jiray fair value gap aan weli lasoo buuxinin, suuqana wuxuu soo ugaarsanayay fair value gapkaas inuu buuxiyo. That's why intaas waxaa ku jirto dhowr bib, dhowrkaas bib aan kasoo faa'iidaysto oo ah 100 iyo dhowr bib ama 100 bib ama 500 oo bib ama intaasoo bib. That's why intriga marka waxaan sugayay inuu ruleskayga ii waafaqo, aan helo sharcigayga. haddii aan aniga quarterly theory ku trade garaynayo, haddii power of 3 aan ku trade garaynayo, haddii CRT aan ku trade garaynayo, haddii WM strategy aan ku trade garaynayo. Simple kaliya waxaan rabaa hadafka ahaa waxaa ka duwan tahay dadka kale inaad og tahay maanta waxa lasoo sameeyey oo daily 24 sac oo bilowga ahayd weli aana dhammaano caaw 6 sac ku eg ama 12 ku eg wixii dhici lahaa. hadda waxaa sii samaysay future forecasting wax la dhaho oo waa sii saadaalisay, intriga waa soo qaadatay. qof aanba aqoonin ka waran waxaan iska yaacayo orday. marka you have to embrace yourself inaad dhahdid I'm proud of myself oo ku faraxsanahay nafsadeeda maadaama aan fahansanahay intaan maxaa iga dhiman. waxaa iga dhiman inaan disciplineka iska dhiso. disciplineka maxaa ku dhisi kartaa? any activity walba aad samaynaysid notion samayso ama note samayso, qoro warqad iyo qalin isdaba dhig, laptopkaaga dhinac kaga qoro note samee. maanta waxaan saaka ugu talagalay taariikh hebel inaan lacagta GBP USD aan analyze gareeyo, intriyana aan ka dhex helo, bal anoo fiirinayo ama qiimeynayo aqoonteyda levelka eega gaarsiisan tahay, anoona jaarti qof kale fiirinaynin, qof kale intrigiisa aan raadinaynin, warbixino kale aan soo eegaynin, bal anaa waxaan sameynaa istijaabin ah inaan keligay suuqa soo galo from high time frame of weekly ah, daily ah, 4 sac aan soo qodobaysto waxa aan kusoo arko, 2 sac 1 sac aan ula soo dago aan qodobeeyo, aan 15 daqiiqo gambar dhigto, koob shaaxi aan soo qaato, filin dhinacaan ka daarto, kadibna lacagtaas aan daawado waxa ay sameynayso, wixii la isoo baraan ku bees gareynaya. kadibna haddaan ka helo intrigaasaan dirayaa, waxaan ugu ogolahay $5 ama $10 oo SL inaan dhigto, aan raadiyo 1 to 2 $20 ama 1 to 3 $30. simple. intaas maalinkaas haddii lacagtaas TB ay kugu dhacdo, you are the hero of your life. waxaad tahay qof nafsadiisa geesi u ah, halgamaa u ah, wax u bartay, waqti geliyay. laakiin imagine haddii tan aad ku ordid, aad fiirisid dhaqaaq ay samayso, mid kale aad impress garaysid naftaada dhahdi wow lacagtan TB ay igu dhacday, mid kale aan aado haddana analyze gareeyo, aan soo qabto haddana mid kale aan analyze gareeyo, haddana qof kale groupka haddaan fiiriyo WhatsAppka macalinka muxuu soo dhahay, arday hebel muxuu soo dhigay, jaartigan aan daba cararo mid kale aan sameeyo, waxaan dhumiyay waqtigayga, waxaan dhumiyay enerjigayga, waxaan dhumiyay ama burburiyay consistency-ga ani ii yaalay ama xeerka ani ii yaalay. sidoo kale meesha waxaan ku dhumiyay maxaa la hadafkii iyo yoolkii ani aan ka lahaa suuqan inaan kasii ganacsado. qofna ganacsigiisa qof lama share gareynayo. markii loo fiiriyo businesska oo kale, waxaa u baahan tahay businesskaaga income-kaaga waxa soo galayo qof lama share gareynaysid. sheygaana laakiin waxa uu kugu fadhiyo ma tusee ganacsada markuu ku imaado ama qof customer dukaankaaga hadduu kuu soo galo oo ku dhaho waxaa iga iibisaa shay hebel, inaad rasiidka soo qaado ma hortiisa keenay, ma waxaa leedahay waxaan kusoo iibiyey 1.2 aan kusoo iibiyey, adna waxaan rabaa inaan kaa siiyo 1.5 ama $3 aan rabaa inaan kaa siiyo. saas maa dhehe waa may. waxaa u baahan tahay inaad qiimaysato, aad qorato sheyga waxa uu kugu fadhiyo, aad noodgarayso, aad xifdiso. hadhow haddii lagu weydiiyo kaas 100 xab iga sii lagu dhaho, inaad ogtahay 100kaas xab faa'iidada kugu jirto. sababta waxaa ogtahay xamaaliga kuu soo qaaday, jumlada wixii lagaa soo siiyey, transportationka canshuurta wixii kaaga soo baxay, xamaaliga kuu saaray shalviskaaga waxa aad siisay iyo waxa aad gadaysid iyo waxa ka faa'iidaysid. haddii bareyskaas ka hoose aad gadidna waxa qasaaraysid. intaas dhan waa noted. dadka ganacsatada dukaanleyda ah way u qoran tahay, dadka qaarna maskaxday ku xifdisan yihiin. adiga maxaa kuu diidaya suuqan sida ganacsiga kale markii inaad ula dhiil garayso? maxaa kuu diidaya inaad qorto? maxaa kuu diidaya inaad nood garayso, aad la soo sheer garayso dadka aad dhahdid lacagtaana waxaan soo raacay bishii July ilaa iyo July, August, September, October, November, December, January oo hadda 6 bilood lacagtan waxaan ogaaday inay dhaqaaqdo maalmaha Talaadada oo kale bis, especially New York inay dhaqaaqdo, especially 8 sac oo kale inay dhaqaaqdo, especially waqti hebel inay dhaqaaqdo. haddii kan dhal noocaas ay sameysana waxaas inay sameyso. haddii fair value gap ay ku aado dadka lagu siraayo intri ma bixiso.
haddii order block ee tagto way dhaqaaqdaa lacagtan way buubtaa haddii SMT lagu arko 100% taas waay why intaas aa u qori weysid but you are not serious marka suuqa serious uma tihin kaliya waxaa rabtaa technicalkan inaa analyze garaysid qurqurxisid oo sida waxaa way timo la xiiraayo kale entry u diyaarisid ee ku aado aad soo qaadid screenshot WhatsApp-kaaga statuskaaga social-kaaga bam aad dadka tustid inaa forex trader aad tahay laakiin you are not doing nothing waxa ma soo sameynaysid waad diraysaa lacagtii faa'iidada way baxaysaa qofaa waxaa way riyadiisa adiga calaashan ku raaxaysanaysaa qofna raaxada adiga ku raaxaysanaysid buu action intuu ku darsada lacag ka sameynaya qofna waxaas adiga aad dirtay cilmi daraa u geysay waxbuu ku qasaarinaya adiga suuqa dirayna lacag uma haysid qorshan uma haysid baleen uma haysid wixina waa share gareynaysaa how isku qabanay isma qabanayso marka insha Allah caawa waxa way ujeedada aan idinkugu talagalay emotionkaas iyo controlling-kaas iyo entry model-adaas iyo in maskaxdiina ay ku dhisanto discipline ahaan aa u dhisantaan qaabka wax u wadaan way fiican tahay way qurux badan tahay laakiin inaa ku darsataan kaliya inaa wax bartaan